الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى وحكم إذا السنن كيس كونية أو أدومدي سكون مأموله أو كل الرقم وحكم إذا السنة الله يقانه سنة الابتلاء إنه أدومدي سامتحانه أو كلا صاره oo intaynan aakhira aadin oo maxkamadda Ilaahay aysan tagin adduunkaba lagu kala sooco lagu kala maro midka xun ka fiican midka munaafiqa ka muuminka midka dambiilaha ka taa'ici rabbi ataa'aya midka qalbigiisu wasakhaysan yahay ka nadiifta u yahay midka rabbigii jecel iyo midka aan jeclayn midka adduunyadu qaadatay iyo midka is-ilaaliyay Allah tabaaraka wa ta'ala inuu kala saaro oo ay kala baxaan oo ay kala muuqdaan waa sunno Ilaahay waa sunnadana Allah tabaaraka wa ta'ala asbaab badan buu u sameeyay quraanka kariimka in badan Ilaahay sunnadaas ku tilmaamay ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib Allah wuxuu leeyahay tabaaraka wa ta'ala sida aad tihiin iyo xaalka aad tihiin alla idin ku dayn maayo ilaa uu idin kala saaro midka xun iyo ka wanaagsan kala sooco ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun dadkuma waxay moodeen waan rumaynay mu'miniin baan nahay intay dhaheen inta in lagu daynayo miyay moodeen oo aan la fitnaynin oo la imtixaanayn الله وحده تبارك وتعالى كو إذن كهريو الله امتحاني الله واكل ساري إذن كان وإذن كلا ساري يسيء أكل الصعمه بين لها وأقر صيهين يرون لوجا وركي سعدي هاي إلهي تبارك وتعالى قلبك كتشعل شرعي جيس إلى لنا يا ربي تبارك وتعالى أوه جنس شرعي جيس الله بدأ إنه إلهي كلا سارو بناك يمادان سيبري الله لو مرقاتعت لأن مالين قيامة مركب محكمة إلهي إلا تهجو الضوامض وأمورا بدني بني آدم كوحكم أمورا بدني متشرو مجروا الصدق قرنا مقاطو ربي مركو هرتك تبارك وتعالى الله صهر لجوه السماء ديوان كيسي لهر كانوا مرام بوجليا هل يقول عديولي مرخاتي يدي واكون ملائكتي صقرتي ديوانكي واكا دولكو كسمي واكن أنبيادي مرخاتيدي كلا واكون خلائق دي أركيسي وحن مركو سميني واكون كوا وضا مرخاتي ما يقول لكم قنع سني الله تبارك وتعالى عدالة دي سوحا كم ذا الدونك إلاء قروسية وحا قلي إنو سن عذابي وعمد النبي يقول له صلى الله عليه وآله وسلم markaasa afka laga xidhaya xubnaha laga hadal siinaya qaarna waa hadlayaan qaarna way marxaati furayaan ma warba yaala markaas si adoonka dambiyada uu galay adduunka markuu joogo mowqifkiisa cadaymo loogu helo ayaa rabbi tabaaraka wa ta'ala doonaya inuu banaanka soo dhigo adoonku wuxuu yahay see lagu soo dhigaya maxaa lagu kala sifaynaya maxaa lagu kala saaraya fitanka nabigeena Muhammad sallallahu rabbi wa salaamu alayhi siday saxaabadu ka warinayaan waxay yiraahdeen maalin maalmaha kamid ah annagoo nabiga la fadhino dhinaciisa fadhina ayaa waxa la sheegay fitnada rag baa soo qaaday fitnada markaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waxa dhow inuu yimaado zaman iyo waqti dadka la kala sifayn doono لكلا غرغرين دونه لكلا ساري دونه زمن كاسا سودو النبي صلى الله عليه وسلم غرغرينتا iyo kala sifaynta iyo kala saarida waxa ka dhalan doona in ay dhulka korkiisa ku soo haraan dad liita oo kaliya xuthala min الناس dad buunsha oo qashir ah oo qashin ah oo aan qiimo lahayn
ayaa dhulka ku soo hadhaya intii wanaagsaneedna ilaahay waa qaadanaya yadhabu as-salihuna al-awwal fal-awwal inta ilaahay jecel yahay wanaagsani waa tagayaan waa israacayaan dad xun baa soo hadhaya shar badan khayr daran xumaanta u tartama salaax iyo wanaag aan lahayn khayrka aan isfarin xumaanta iskula dardaarma yani waxa way sharka u tartama dadkaas soo hadhi doona nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidka riwaayadkiisa qaar kamid waxay leeyihiin saxaabadiisa nabigu wuxuu ku yiri seed noqon doontaan dadka noocaasa markaad ku soo hadhaan oo intii wanaagsantayd idinka tagaan intaas soo hadhaan xaalkiinu muxuu noqon doonaa waxay ka codsadeen nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay rasuulka ilaahay bal noo sharax bal noo soo cadee dadkaas qashinka ah ee soo hadhay say u yaalaan qaabkay yihiin nabigu wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wa alihi wasallam saddex qodob oo lagu garanayo mujtamacu inuu halaabay oo zamanku inuu fasaaday oo xaaladdu inay halis tahay midda koobaad nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam ballantii iyo ahdigii dadka ka dhaxeeyay ayaa baaba'aya ballan baa ilaahay kala dhaxaysa khalqigana ballan baa kala dhaxaysa ballantii bay dadku fududaysanayaan oo baaba'aysa allah ballantii la galay la ilaalin maayo khalqiga ballantii la galay la dhowri maayo wixii lagu heshiiyay la ilaalin maayo nin walba damaciisa iyo hungurigiisa hor socdiya hawadiisa wax la dhowraya ma jiro qodobka labaadna nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam amaanado iyadana dhimata amaanadii oo iyadana qasanta ila sida xadiidka nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam dadka laga waayay cid amaana leh amaanadu macnaheedu ma aha xoolaha kaliya in la ilaaliyo wixii lagu dhiibtay amaanadu waa ka guda weyntahay macna weyn bay leedahay inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa-abayn amaanadu waa culus tahay amaanadu waa tii ilaahay kugu amaanaystay waa takaaliiftu ku saaray isaga ku abuurtay waa amaanada khalqiga kala dhaxaysa amaanaduna way dhiman buu rasuulku yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ila la yiraahdo reehbal waxa ku jira nin aamin ah ruux aamina reehbal ku jira waa qabiil dhan umada inteedii kale waa laga waayay waa tamaanta taagan waa yaa amiin ah yaa wax lagu aaminaa yaa takaaliifta ilaahay ilaaliyay yaa adoomada xuquuqdoodii ilaaliyay yaa wixii lagu aaminay dhowray khiyaanada iyo laqdabada iyo xisdoo marinta iyo dhaca iyo wixii baabatay ilaaba midka aad isleedahay dadku ugu rooyay maalinta dambe lagaaga soo baxo amaanadii baabaaday ahdi iyo ballanna ma jiro wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam qodobka saddexaad way iskhilaafayaan ila miirkoodii iyo maankoodu isdhaafo sida faruhu isu dhaafsan yihiin markaasuu faraha nabigu saa isu dhaafiyay sallallahu alayhi wasallam sida ay saa isugu dhaxgashan yihiin oo kale ayay isu khilaafayaan buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi midba midka kale uu ka baqaya shaki buu ka qabaa waxay ilaalinayaan ma jiro wax ka dhaxeeya ma jiro masaalixdii guud baa baaday nin walba tiisa khaaska ah ayuu doonayaa inuu ka dhaxaqiijiyo masaalixda ummaddu ka dhaxaqiijin raba sidaas daraadeed khilaaf aan xad lahayn oo xuduud lahayn qabaa'il kooxo guruubiyo xisbiyo dalal aafo laba socoto ma leh kuwii diintu ka dhaxaysay waa ishayaan kuwii dalku ka dhaxeeyay waa ishayaan kuwii dawladdu ka dhaxaysay waa ishayaan meel fayowi ma jirto faqtalafu fakanu hakada abu nabi sallallahu alayhi wasallam wax isdhex galiseedu kala saari adiga lama kala saari karo intaasi madkar adaragto abu nabi sallallahu alayhi wasallam meeshaasi waxa yaala dadka intoodii ugu sharbadnayd baa soo hadhay intii fiicnay tagtay xufaalatu naas baa soo hadhay طبعا mar walba iyo marxalad kasta iyo xilli kasta laga waayi maayo ummadda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam in yaro saalixiina laga waayi maayo mar kasta laakiin waxa laga wadaa dadka badankii baa saan noqonay dadka mucdamkooda jumhuurtoodii baa saan noqday nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markuu xaaladda inoo tilmaamay طبعا waxaan maanta ku suganahay hadad u fiirsataan iyo hadalka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam hadad iska rab dhigtaan wuxuu ka warramayo waa ta ina haysataan wax la mida waa tan aynu ku suganahay wax la mida way wax nabi maxamed ka warramayo salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxii baana ilaahay ugu sheegay ilaahay baa horay ugu sheegay inay sida wax u dhici doonaan ma xalla
saxaabadu su'aashaas ay nabiga weydiiyeen sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay markay sida wax u fasaadaan xaaladu qasanto maxaa xal aseen ku badbaadnaa maxaa badbaadaa su'aal muhiim waay seen u badbaadaa seen ku baxaa jidkeen maraa seen ku nabad galaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam dhowr qodob qabsada khud ma ta'rif xaaladu ma sahlanee waxaad garanaysaa bas qaado waxaad garanaysaa ku gaabso limaada luwi nabigu sallallahu alayhi wasallam anna xilliga fitanki iyo aafaadku taagan yihiin dadka waxa isaga qasma xaq iyo baatilkiiba isku qasmaya wixii baan la kala saari karin mid walba af labadii buu dhawaaqaya ana xaq loo ana gar loo ana maslaxa u taagan oo ana ummadda u taagan oo ana u dhimanaya mid walba isaga iskarsiinaya xaaladii waa qasan tahay wax ma kala socna mar haday sidaa tahay khud ma ta'rif inta aad garanaysay ku cad ku gaabso wixii shaki kaaga jiro wixii ku cadaan waayo wixii aadan yaqiintiisa haynin ka fogow laana meesha la isu fadhiyo halka waa hadii aad markaas oo kala tiraahdo bal isaga dadaal bal ku day bal ku tijaabi daa way meesha la iska raacayo khud ma ta'rif waxaad garanaysaa ku gaabso wadac ma tunkir wixii aad qoonsato inkirtana ka tag nabiga sallallahu alayhi wasallam waa qodobka labaad wixii aad qoonsato astiraada ama diintaada wax ka soo gaaraan ama aakhiradaada wax ka soo gaaraan wixii shariicadu diiday wixii alla ka reebay wixii aad inkirtood qoonsato oo sharcigaad iyo intaad garanaysa aad qaadan weydo aad liqi weydana ka fogow nabiga sallallahu alayhi wasallam isaga tag qodobka saddexaad nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam danahaaga khaaska ah ku mashquul danahaaga khaaska maxaa dan khaasa ku ah cibaadadaada maxaa dan khaasa ku ah duruuftaada khaaska ah ilmahaaga iyo caruurtaada iyo gurigaaga calaaqada rabbiga kala dhaxaysa waqtigaaga oo ka faa'iideysato cibaadada rabbiga tabaaraka wa taala lianna waqtigaasi fitnadu taagan tahay sida nabigu sheegay sallallahu alayhi wa alihi wasallam ruuxu inuu iska cibaadeysto oo cibaadada ilaahay ku mashquula waxay la fadli tahay la mid tahay nabigu sallallahu alayhi wasallam sidoo ruux aniga iisoo hijrooday oo kale ka hijratin ilayya sababtu maxay tahay xilliga fitanku taagan yihiin dadka intooda badan qafla ku dhacaysa wixii ilaahay u abuuray oo dhan bay halmaamayaanba waqtigu wuxuu ku dhamaanayaa waxaan macno lahayn waxaan qiimo lahayn fadhi ku dirir tahliilaad waxaan waxba ka soo galaynin ba dadka waqtigood ku dhamaanay cibaadaadkii ku dhaafayaan xilligaas oo kale ruuxii dantiisa karto dantiisa khaaska ku mashquula kaasa badbaadaya dantaada khaaska qabso wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam kadibna arrimaha guud iyo danta dadka kale isaga tag danahooda isaga tag kursi bay isku leeynayaan isaga tag dal iyo deegaan bay isku haystaan isaga tag hunguri bay isku leeynayaan ka jeeto adduunya isu keento isku haystaan oo ku hardamayaan isaga tag danaha dadka kale faraha ka qaad mujtamaca danihiisa faraha ka qaad waxba kama qaban kartid xilliga hawshu ay gacmaha isgalaan oo uquushu isgalaan oo maskaxdu iskasho wax kala saari kara ma jiree meeshan ha ku rogmanina danahaaga qabso waxaan kalena isaga dhaafo nabiga sallallahu alayhi wasallam faraha ka qaad طبعا haddii inuun xal suuroobi karo oo dadka qaar wax islaaxin kara jiraan oo islaaxu suurtagal yahay ma aha lagama dayrinayo islaaxa waa in wax islaaxiyo waa in dadka wanaaga la faro xumaanta laga reebo laakiin xaaladdu markay aragto ishtibaaga ay gaadho nabigu wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi arintaada khaaska ah tan caamkaana isaga tag dadka hawlahooda isaga tag oo maxaa ummadda halaagay oo maxaa kii wadaadka ahaa oo shalay duruusta akhrinaya ummadda diinta u sheegayay fitnoole dagaal ooga ka dhigay oo dhiig daadinaya maxaa ka dhigay waa un taas waay oo maxaa ka dhigay taajirkii iska xasiloonaa ee iska deganaa ee iska ganacsanayay asagana maxaa dagaal ooga ka dhigay oo caabidkii zaahidka ah ee masaajidka ku jiray maxaa ka dhigay mid fitnada hor orda maxaa ka dhigay soo un tijaabi ma waa tijaabi bal ka wardoon bal wax qaban karto in badan oo kamidana waxa hordey damca ba hor orday sidaas daraadeed
baa nabigeenu wuxuu ku taliyay sallallahu alayhi wasallam danahaaga qabso danaha dadka kaliya waxa ka dhaxeeyana faraha isaga qaad faa'iido ka keeni maysid wuxuu rasuulkeenu ku taliyay sallallahu alayhi wasallam waa qodobka kale gurigaaga laazim waxa laga wadaa xilliga fitanku ay jiraan hadaad banaanka isa soo dhigto ood magac raadiso iyo muuqasho waa meesha la iska raaco waay hal lagu arko hal lagu maqlo hal lagu sheego meediyaha social meediyaha raadi orod war meeshan balaaya taal waa suuq balaaya yaalo waa meesha had lugta la galaysaa meel sahlan maaha xilligan oo kale waa xilligu nabigu amaanay sallallahu alayhi wasallam inuu ruuxu qarsoomo danihiisa khaaska ku qarsoomo dadka ka qarsoomo hawlihiisa iska wato ila nabigu sallallahu alayhi wasallam uu amaanay markay fitanku dhacaan ruuxa dadka intuu ka dhaxbaxo waxba lama qaban karo kale waa xilli aad ka tahay hawsh duurka aada xayiro ariya samayst buuraha ku raacanay meeshii roob kuda la aaday meeshiisa ilaahay ku caabudaya magaalooyinka iyo dadkiina isaga dhaxbaxay ayuu nabigu amaanay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sababtu maxay tahay an-najaa marba waxay gaadhaysaa nafsi bay gaadhaysaa naftayda saas daraadeed gurigaaga ku ekow danahaaga khaas ka qabso qodobka u dambeeya nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi tilmaamay waxay carabkaaga celi carabkaaga ka adkow lianna carabku waa meesha ugu horeysa fitnada abuurta waay dagaal hadal buu ka bilowdaa fitnada hadal bay ka bilaabataa tilaaba ku xigta xubnaha raaca marka ugu horeysa qalbiga amra carabka soo daaya xubnaha ku raaca way baahdaa fitnadu saasay ku fidaa hadaad carabkaaga haysato oo afkaaga ceshato oo isxakamayso oo adimadaadana sida ku xakamayso shaki malaha ugu yaraan adaa badbaadaya ka soo qaad ummadda maanta fitnaysan ee bad iyo bariba meel walba ku fitnaysan hadii min ruux walba uu inta qaadan lahaa nasaa'ixda nabawiga ah haduu qaadan lahaa shaki malaha aafadu waa yaraan lahayd balaayadu waa yaraan lahayd laakiin midkii dhalinyaradii iyo dumarkii iyo odayaashii iyo siyaasi iyo culimadii iyo cid walba markay tiraada ka wardoon mid taxliiliya mid ka hadla mid rogroga mid baahiya mid dhaqaale ku bixiya mid hogaamiya mid wax ku darsada mid yiraahdo waxbaan ka qabana marka dambana ay qaadato markaasi waxa weeyaan wixii waa si baahaysa waa si fogaanaysa halkaas aad fahmi kartaa xikmada nabawiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi lianna sharciga ilaahi waa muqaddas nabi maxamedna wuxuu ku hadlay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu faylasuuf iska hadlay maaha ee waa nabi ilaahay soo dirsaday wuxuu ku hadlayana waa wahyi rabbi waay alli koonkan abuurtay aadamahan yaqaana waxa iimaan doona garanaya isbedeladan la socda asagu abuuraya ya nabi maxamed uu waxyooday salawaatu rabbi wa salaamu alayhi hadaad qaadato waad badbaadi hadaad qaadan weydo oo sanka taagto damacu ku qaato hungurigu kula tago oo aad tiraado maya waxba la qaban tayib meeshaad ku dambaysaa la arkay adoo marka dambe dhiig faraha kula jira dhiigii ummadda xalaashaday kursi raadis ah hunguri raadis ah balaayo raadis ah xoolo raadis ah adigoo xaalada ku jira dhiman ilaahayna waad la kulmi halkaasa khasaaraha ugu yaala adduunyo aakhiraba waad khasaartay aynu u soo noqono nasaa'ixda nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi zamanku zaman fudud ma aha ninkii moodaya inuu fududo waad gabsan tahay zamanku waa culus yahay waqtiguna waa culus yahay meel fayowna ma jirto saas daraadeed hadaadan wax kala qaban karin laftaada la badbaad صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب